marka mid Soomaaliya ayaa wuxuu ku yiri mid Hindiya wuxuu ku yiri goorma soo islaamtay buu ku yiri Hindigii baa Soomaaliya ku dhahay goorma soo islaamtay aabaha oo gaal soo islaamay buu هذا كور باوحن تجي South Africa Soomaalidu dib ay ka tagtay laakiin jaaliyada xoog badan ee muslimiinta matasha waa Hindida waay marka waxa dhacday Soomaaliduna madmadow oo Afrikaan ah baa Hindidii ka dul dhacday nimankii intaas oo qarni masaajid hayay masaajid qurqurux badan ka dhisay ay ka dul dhacay ayagu marka waxay sameeyaan Hindidu muadinka ayay ka dhigaan dadka dalka u dhashay waxay qabaan al-adaan li Bilal aadaanka xabashida iska leh xabashida aadaanka dadka madmadowba iska leh qabaan oo Bilal baa aadaami jiray Soomaa xadiis noocaas waa jira marka ninka ka aadaama masaajidka arabna ma aha hindina ma aha qasab waa inuu noqdo dadka Afrikaanka ee dalka degan ayaa ka aadaamay markuu aadaamo safka hore kuma tukan karo waa inuu gadaal u baxo ruux aan ahayn cadaanna safka hore inuu ku tukadaay mas'alo fudud ma yaqaanaan dadkii dalalka deganaayay Afrikaanka ahna way garowsadeen ayaga laftooda way qaateen oo safka hore isku balgoyn maaya Soomaalidii markay meesha tagtay maxay samaysay Hindigii wuu soo daahi Soomaa safkii koobaad iyo kii labaad oo bisi buuxsanayaan Hindidii waxay ibaarayaan sufuuftii hore buuxday wardadkan madmadow ee balaayada aafada ila soo galay maxay ahaayeen bili wala isku kadeedna ilaa ay u haysteen dadkani inay yahaayeen dad gadaal ka soo islaamay sida Afrikaanka kale dib ka soo islaamay marka mid Soomaaliya ayaa wuxuu ku yiri mid Hindiya wuxuu ku yiri goorma soo islaamtay buu ku yiri Hindigii baa Soomaaliya ku dhahay goorma soo islaamtay aabaha oo gaal soo islaamay buu marka waxa weey waxaan ka waday oo ujeedadeedu ahay يعني dadkaas iyo dadka muslimiinta Hindida iyo Soomaalidu say isugu kadeedayn wadiyaabi baba waxaan tagnay Rotterdam magaalo la yiraahdo oo kamida South Africa marka masaajid weyn oo walaalaha Hindida gacanta ku hayaan baa ku yaal marka dumarkoodu Hindida masaajidna ma yimaadaan ciidna uma soo baxaan guryahay joogan dumarkii Soomaaliguna masaajidkana way imaanayaan ciidana ayaga dadka u soo horeeyaba arintii iyada ahayd baa dhibtay masaajidkan dumarku soo galahayaan oo muxuu ahay muxaadaraadka iyo markay qaadanayaan iyo markay tukanayaan iyo dumarkii Hindida ah baa marka waxay arkeen dumarkan masaajidda galaya ciidaha imaanahayo markaas raggoodii waxay ku yiraahdeen wareerde diintu ma diidin inay dumarku masaajidda ku tukadaan oo ciidaha baxaan maxaad anagu u haystaan dumarka Soomaalida xijaabnaaba oo kuwaas maalintii damba Hindidii baa waxay u yeedheen Soomaalidii waxay ku yiraahdeen walaalayaalow waan ognahay inay masaajidda dumarku ku tukan karaan ciidana ay imaan karaan laakiin dumarkanagii ma xijaabna kuunu xijaaban yihiin dumarkan dhagiin xijaabnayn baa waxay sababaysaa inay soo baxaan oo masaajidana yimaadaan ciidana yimaadaan ee waxaad sameeysan hana ibtileynine hana aafeynine dumarka reeba oo masaajidana ka celiya ciidana ka celiya ay ku yiraahdaan mutaqana warinta dumarka u diideysaan khayrka dumarka xijaaba oo dumarka xijaabka ha ka bartaan marka waxaan ka wadaa markaynu bulshooyinka kale isdhex galno waa isku rafaadnaa qayladeena musqulihii meelii kabaha la dhigay nidaam bay leeyihiin dadkan nidaam bay leeyihiin daqiiqa nidaamka daqiiqa ana Soomaaliya waxa soo gali aan nidaam aqoonin hadhow qorta la isla geli